Bismillaahirrahmaanirrahiim. Maanta waxaan sameyneynaa baasta macaroni lisaanya laga dhigay daawasho wacan. Qaybta hore ee suugada waxaan ku bilaabi doonaa basal iyo barbarooni iyo yaanyo iyo toon iyo hilib shiidan. Waxaan kaloo ku dari doonaa maraq jumbe, shiishiid iyo basbaas. Birti ayaan dabka saarnay, saliidii baan ku shubnay, qudaartii oo dhanna waan ku darnay oo basasha ugu horeysa iyo barbarooniga si aan u dalacno isku darno suugadii oo dhan. Kadib suugada ha qalaysanto, dhacaankana waa inay dhammaysataa iyo biyaha. Baastada isticmaali doonaa waatana waxaana la yiraahdaa manikoti. Biyaha dabka saaro, sug intay ka karkarayaan. Biyaha markay karkaraan baastada ku dar, wax yar oo cusbo ah ku dar, 2 daqiiqana waa inay ku jirtaa dabka. Baastada markaad ka dejisid waxaad sameysaa hilibka ku gur 2 dhinac way ka duleeshaa gacanta kaga qabo dhanka kale. Shayga ovenka ku gelin lahayd ku gur kadibna cheese korka uga daadi. Aluminum birta la yiraahdo korka uga xir kadibna ovenka geli. Heerkulka ha ahaado 300 40 daqiiqana ha ku jiro. Waxaa ku soo baxaysa baasta macaroni lisaanya. Haddii aad muuqaalka wax ka faa'iideen fadlan like saar, subscribe saar. Haddii aad su'aalo qabtiin commentiga noogu soo qora. Mac salaama.